السلام عليكم أصحابتي kusoo dhawaada janaalka la magac baxay guusha adduunka. Maanta waxaan idin wadnaa cashirkaas wuxuu ku saabsan yahay sida applicationada looga bedelo maqal ay sawir wixii saaranba. Marka aad rabtid inaad ka bedeshid application maqal ay sawir wixii saaranba waxaad galaysaa application-kan magaciisu waa kaas kor ku qoran oo waaweyn. halkaas meesha qaybta labaad ayaad ku dhufanaysaa. kadib markaad ku dhufatid haddana qaybta labaad ayaad ku dhufanaysaa. halkaas ayaad taabanaysaa sawir marka aad ka bedeli rabtid. sawirka ayaad raadinaysaa qaanada uu kugu jira sawirkaas ay rabtay. hadda mid ayaan iska saaraynaa. haddana maqalka markaad inaad bedesho rabtid dhinaca kale ayaad tegaysaa. kadib maqalka waad daari kartaa. qalinka yar ayaad ku dhufanaysaa. qalinka yar haddana qaanadii oo maqalka kugu jira ayaad raadinaysaa. haddaad rabtidna muuqaal waa saari kartaa. wax muuqaala maqal ahaan u adeegsaa asagu noocaad rabtid ayaa saari kartaa. maqal iyo muuqaal intaba maqal ahaan ayuu ka dhigaya. haddaa muuqaal saartid save ayaad kadib ku leedahay. waxyar ayuu save garaynayaa. application ma ahan qad u baahan. hadduu save gareeyay install ayaad leedahay kadibna waa la soo degi. haddii aad wax ka fahantay fadlan leeg saar oo si muuqaalka xaqiisa haddii kale dislike waad u fasaxan.